xilli qabashada qarankani Somaliland ayaa shay dastuuriya oo lagu horumariyo bulshada harsanaysa calankani Somaliland hase yeeshee shakhsiyaadka qaar ayaa siyaabo khaldan u adeegsada xilka lagu maamuso iyagoo ka faa'iideysanaya jaaniska ay bulshada u hayaan isla markaasna maanka ku haya oraahda badiba ay isticmaalaan xil quutayaasha baratanka kula jira maalmaha kooban ee ay xilka hayaan ee oranaysa xilku waa wareegto maanta waa adiga berrina waa khayrka ee inta aad xilka hayso docda buuro u shaqaynta qaranka iyo bulsho rajo wanaag kale helida ictiraaf sigan iyo ku noolaanshaha cadaalad siman oo ku dhisan nabadgelyo waarta ayaa ah shayga kaliya madaxweynuhu u soo xusho golihiisa wasiirada misana kitaabka alle midigta looga saaro iyagoo dhaar ku maraya inay daacad ka ahaanayaan shaqada ay u hayaan shacabkooda isla markaasna ay u horseedayaan horumar ballaaran inta karaankooda ah gudida la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dabagalka hantida qaranka oo ah guddi hoosaad ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa ah gudida kaliya ee ka shaqeysa xadidida iyo ilaalinta cid wal oo ku xadgudubta hantida qaranka iyo waliba kashifaada mas'uuliyiinta musuqa geysta ee dhigmirtayaasha ku noqda shacabkii ay kitaabka alle ugu mareen inay daacad iyo hufnaan ugu adeegayaan bulshadooda gudoomiyihii u dambeeyay xilkaas adag bulshada u qabta ayaa ah xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shiri oo ah gudoomiyaha gudida dabagalka hantida qaranka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxayna shacabku diyaar uga yihiin mar walba inay ka dhageystaan soo bandhigida cid wal oo ku xadgudubta qarankan 27 jirsaday isagoo waliba ku lifaaqaya cadeemo qeexaya musuqa lagu eedeynayo mas'uulka taleefada u dhigay dalkiisii iyo dadkiisaba si bulshadu marag iyo markhaati uga ahaato isaguna u guto waajibaadkiisa shaqo haddaba dhawaanayay ahayd markii gudoomiyaha gudida dabagalku banaanka soo dhigay musuqmaasuqyo baahsan oo laga galay qaranka waqtiyo hore kuwaas oo dabalka lagu lingaxay si aanay shacabku u ogaanin hase yeeshee dadaal iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen gudida dabagalku waxa ay ka midho dhaliyeen karsheegida mas'uuliyiin iyo shirkado musuq ka geystay wadanka intii xukuumadii galbatay ee uu horkacay madaxweyne Silaayo ay talada haysay waxaana gudoomiyaha gudida dabagalku shacabkiisa u cadeeyay khiyaamada loo geystay wadanka isagoo mid isu dul taagay isla markaasna mid walba ku lifaaqay cadeyn buuxda oo marag u noqonaysa misana shacabka Somaliland ee indhaha la qabtay dabalka uga qaadaysa khiyaamada loo geystay shakhsiyaadka qaranka u matala daacada ee u tafaxayta karun sheegida kana dhiidhiya dhibta loo geysto wadanka ayaa tira ahaan aad isaga yar waxaana shacabka Somaliland ay aad ula dhaceen habsamida dabagalka uu xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shiri kaga dhabeeyay inuu banaanka keeno musuqyo laga galay qaranka hase yeeshee gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ayaanay u cuntamin wax qabadka ay guddo hoosaadka dabagalku juhdiga u geliyeen misana ay shacabkooda ugu soo bandhigeen xaqiiqooyin dhacay oo daboolka la saaray wuxuuna gudoomiye Baashe ciida cunsiyay xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shiri wuxuuna banaanka ka dhigay xilkii gudoomiyenimo ee uu ka hayay guddo hoosaadka dabagalka hantida qaranka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa taasoo ay dad badan u fasisheen in gudoomiye Baashe meelo kale laga soo tuquntuqiyay amaba uu fara kula jiro musuqmaasuqa ay banaanka soo dhigeen gudida dabagalku hase yeeshee ilaa haatan shacabka iyo waxgaradka Somaliland oo ka warqaba tacadiga lagu abaalmariyay xildhibaan Naasir Cali Shiri ayaa waxay u dhegtaagayaan sida laga yeeli doono mas'uuliyiinta iyo shirkadaha wadanka musuqa ka geystay walow madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ilaa haatan aanay wax jawaab ka bixinin haddana waxaa laga warsugi doonaa haddii madaxweyne Biixi ku dhiirado in maxkamadda uu hor keeno musuq geystayaasha si cadaalada loo marsiiyo loona dhadhansiiyo qaraarka ay leedahay khiyaamada ay u geysteen qarankooda haddiiba se ay dhici weydo in cadaalada la hor keeno waxa meesha ka baxaysa kalsoonida ay dad badani ka qabaan xukuumadda uu haatan taliskeeda hayo madaxweyne Biixi waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar